bariga dhexe wax naxariisa oo la isku sameynaya hadda ma jiraan. dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqday diyaar garowga dagaal ka dhan ah nidaamka Israel ee xoogga ku haysta dhulka Falastiiniyiinta waxaana ay tilmaameen dagaal bedeli doona bariga dhexe inay sameyn doonaan. Ayatullaahi Cali Khamenei oo ah murshidka ugu sarreeya dowladda Iran ayaa goor dhaweyd la hadlay warbaahinta waddankiisa waxaana uu si la yaab leh uga hanjabay nidaamkaasi iyo xulufada reer galbeedka waxaana uu yiri dowladda Iran waxa ay doonaysaa isbedel dhab ah iyo waliba nabad ka islaaxda gobolka bariga dhexe oo aan lagu keenin baryo iyo waliba in Israel loo garab raariciyo. haddaba tani ma waxay noqon doontaa bilowga dagaal weyn oo cusub oo gobolka bariga dhexe ku soo fool leh. warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa ayaan idinkaga hayaa arrintaasi. hogaamiyaha ruuxiga ah ee beesha Druusta ee Syria oo diiday xabad joojin ka dhacda gobolka Suwayda kadib markii uu maanta la hadlay warbaahinta isaga oo garab ka helaya Israel waxa uu yiri gobolkan Druusiyiinta ayaa ka talin doona waligeed mana jirto dowladda Dimashq inay si hoose ay u hoos tagto. aad ayaa haddaba arrintan loo hadal hayaa iyadoo dowladda Dimashq ay doonayso dagaalka in la soo gabagabeeyo ciidamada Israa'iilna ay joojiyaan duqeymaha ay ku hayaan waddankaasi. warbixin ayaan idinkaga hayaa dowladda isutaga Imaaraadka Carabtana waxay leedahay dagaalka ka soconaya Syria ma aha wax la aqbali karo waana in si degdeg ah xabad joojin loo qaataa. dowladda Abu Dhabi waxay doonaysaa in dagaalka uusan sii baahin si aanay saameyn ugu yeelan gobolka bariga dhexe. qubarada istiraatiijistayaasha ah ee dagaalkuna waxay leeyihiin marka la eego xaaladda gobolkaasi iyo meesha uu taagan yahay waxa ay soo dadejinaysaa gobolka bariga dhexe inuu isbedel weyn oo ballaaran uu ku soo kordho. qubarada ee kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran oo maanta hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inuu diyaar u yahay dagaal ay dowladdiisu mar kale la gasho nidaamka Israel. waxa uu yiri isbedel weyn oo ka hana qaado gobolka bariga dhexe ayay dagaaladan cusub sameyn doonaan iyadoo meesha ay ka bixi doonto buu yiri gacan sarreynta Israel iyo gardarrada maalinba meel ay ku weerarayso sida uu tilmaamay. sida uu ku waramayo ama ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullaahi Cali Khamenei ayaa Arbacada sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo meel weerar military oo kasta oo cusub oo ay isagoo Hussein Tehran ay awood u leedahay inay garaacdo cadawgeeda si ka xoog badan intii ay isaga difaacday dagaalkii 12 maalmood ee la gashay Israel. Khamenei waxa uu yiri xaqiiqada ayaa ah in ummadeenu ay diyaar u tahay inay wajahdo awoodda Mareykanka iyo ergegeeda waalan ee bariga dhexe ee Israel. waa arrin mudan in lagu bogaadiyo dowladda Iran sida geesinimada leh ay uga jawaabayso weerarada markasta ku soo fool leh. warkan ayaa si toos ah uga baxay telefishinka rasmiga ah ee dowladda Iran oo maanta laga baahiyay khudbad uu jeediyay Ayatullaahi Cali Khamenei. dagaalka iyo weerarka saldhigyada ayaa muhiim noo ah ayuu yiri markan isagoo si weyn u caraysan ayuu telefishinka ka soo muuqday. bishii la soo dhaafay Israel iyo Mareykanku waxa ay weerareen xarumaha nuclear-ka ah ee Iran leedahay. dagaaladaasi waxa ay sheegeen in xarumahaasi ay qayb ka ahaayeen barnaamijka hubka nuclear-ka halka Iran ay wali ku adkaysanayso in barnaamijkaasi uu yahay mid rayid ah oo loogu talagalay korontada iyo adeegyo kale oo madani ah oo muhiim u ah baa la yiri guud ahaanba waddankaasi. Khamenei waxa uu sidoo kale sheegay saldhigyada ay Iran weerartay waxa uu ahaa xarun aad xasaasi u ah oo Mareykanku uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe. marka la eego xayiraadda warbaahinta laga qaado goobahaasi ayaa la ogaan doonaa dadkuna waxa loo bandhigi doonaa ayuu yiri khasaaraha rasmiga ah ee dowladda Iran ay u geysatay saldhigyada. waxa uu jeediyay ama uu si gaar ah farta ugu fiiqay saldhigga Mareykanka ee Al Udeyd ee ku yaala gudaha dalka Qatar oo la rumaysan yahay in Iran ay ku beegsatay weerar gantaalo ah kuwaasi oo khasaaraha soo gaaray wali si rasmi ah loo baahin. cadaadis rasmi ah ayaa Iran la saarayay sanadihii ugu dambeysay. Iran waxa saaran cadaadis ay dib ugu laabatay baa la yiri wada hadallada ku saabsan barnaamijka nuclear-ka Mareykanka iyo 3 dal oo kale oo Yurub ah oo UK, Faransiiska iyo Jarmalka waxay isla garteen
in dhammaadka bisha Agoosto sanadka 2025 uu noqdo waqti kama dambaysa oo la gaaro heshiis cusub. danjiraha Faransiiska waxa uu ka digay in haddii horumar laga gaari waayo wada xaajoodyadaasi laga yaabo in la soo celiyo cunaqabatayntii qaramada midoobay oo la adeegsada habka degdega ah ee cunaqabataynta loogu soo rogayo dalka Iran. hadallada ugu dambeeya ee Khamenei waxa ay ahaayeen kuwo aad u adag, waxaana uu tilmaamay shacabkiisu inay diyaar yihiin. shacabka Iran ma noqon doonaan kuwo liita, mana yeeli doonaan wuxuu yidhi cabsida nooc kasta ah haddii ay tahay arrin diblomaasiyadeed iyo mid military labadaba. waxaynu wajahaynaa ama aynu uga hortagaynaa si adag, mana geli doonna buu yidhi meel daciiftimo ah oo waddankeenna lagu ihaaneeyo. waxa uu ugu dambayntii ku booriyey diblomaasiyiinta Iran inay raacaan talooyinka ay sii wadaan shaqadooda si niyad sami leh, inkasta oo uusan faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi. baaqa ka yimid baarlamanka Iran ayaa sidoo kale ahaa mid cajiiba. baarlamanka Iran ayaa Arbacadii soo saaray bayaan ay ku sheegeen in Iran aysan dib ugu laaban doonin wadahadallada nuclearka ilaa laga fuliyo baa la yidhi shuruudaha horey loo cayimay, iyadoo tani ay muujinayso hadal carale oo ka imaanaya dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. Iran iyo Israa'iil ayaa dagaal muddo 13 maalin socday u dhaxmaray, waxaana lagu soo warramay in si weyn loo qabjabiyey nidaamka Israa'iil oo in muddo ah weerar kala duwan qaadayay. dhinaca waddanka Syria haddii aan eegana, hogaamiyaha ruuxiga ah ee beelaha Druusta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuusan diyaar u ahayn in hadda beeshiisu ay qaadato waxa badjoojina, iyadoo dagaallo u dhaxeeya beeshaasi oo garab ka helaya Israa'iil iyo ciidamada dowladda Axmed Sharac ay ku dagaalamayaan magaalada loo yaqaano As-Suwayda. hogaamiyaha ruuxiga ah ee beesha Druusta Syria oo loo yaqaano Sheikh Hikmat al-Hijri ayaa habeennimadii Arbacada oo caawa ah si cad u diiday heshiiska xabad joojinta ah ee magaalada Suwayda. wasiirka amuraha gudaha Syria ayaa shaacisay wasaaradda amuraha gudaha Syria ayaa shaacisay in heshiis cusub oo xabad joojina lagu gaaray Suwayda, iyadoo aysan jirin wax iska hor imaadyo goosgoos ah oo ka dhacay kadib markii ciidamada dowladda ay gudaha u galeen baa la yidhi magaalada oo ay ku badan yihiin dadka Druusta. warbaahinta dowladda Syria ee Sana ayaa sheegtay in heshiisyo xabad joojina la dhigi karo kontarool ama gudaha magaalada, isla markaana magaalada si buuxda loogu daro maamulka dowladda Syria ay gacanta ku hayaan. sidoo kale hogaamiyaha beesha Druusiga Sheikh Yusuf Jarbuuc ayaa ku dhawaaqay heshiiska lala gaaray dowladda Syria oo lagu joojinayo dowladda military ama howlgallo military in hubka si sharci darro ah halkaasi loogu wato. haddaba muxuu yahay mowqifka Sheikh Hikam al-Hijri? Sheikh Hikam al-Hijri ayaa ku adkaystay inay muhiim tahay in la sii wado iska caabinta si loo xureeyo dhammaan gobollada Suwayda ee gacanta ugu jira kooxo uu ku tilmaamay burcad hubaysan, isagoo intaa ku daray in arrintan ay tahay waajib qaran, bini'aadinimo iyo mid akhlaaqeed intaba. isagoo ka hadlayay warbaahinta oo si weyn arrintaasi ugu soo bandhigay, waxa ugu baaqay kooxaha hubaysan ee ku haray buu yidhi inay hubka dhigaan oo ay isdhiibaan, isagoo ballan qaaday in aan la dhibaatayn doonin ciddii isdhiibta, lana ilaalin doono sharafkooda iyo badqabkooda. arrintaasi ayaa waxa ula jeedaa dadka carabta ah ee dowladda gacansaarka la leh. dowladda Syria maanta waxay la kulantay duqayn ba'an oo uga timi dhinaca Israa'iil kadib markii kooxda Druusiga ay weydiisatay baa la yidhi inay garab siiyaan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa caawa ku dhawaaqay in dadka Druusiga ah ee dhinaca Israa'iil ee dhulka Falastiin ay jooga aysan ka tallaabin xuduudda si aanay qayb uga noqon dagaalka, waxaana ciidamadiisa uu ku booriyey inay dagaalkaasi sii wadaan. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday xabad joojin ka dhacda baa la yidhi Suwayda oo ka tirsan gobolka ama ka tirsan dalka Syria, halkaasi oo ay hadda si weyn isugu hayaan Israa'iil iyo dowladda Axmed Sharac uu hogaamiyo ee Jamhuuriyadda Carbeed ee Syria. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah u soo dhaweysay
heshiiska xabad joojinta ee lagu dhawaaqay ee ka dhaqan galay gobolka Suwayda ee koonfurta Syria iyadoo oo muujisay muhiimadda ay leedahay dejinta xaaladda iyo ilaalinta shacabka iyo waliba dadka rayidka iyo taageerada dadaalada lagu doonayo in lagu soo celiyo nabadda iyo xasiloonida gobolkaasi. sidoo kale Imaaraadku waxa uu si xooggan u cambaareeyay xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan koonfurta Syria gaar ahaan duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ku qaaday gobolkaasi. waxaana uu Imaaraadka si cad ugu xadgudbay madax banaanida waxa la yiri Israa'iil ay si cad ugu xadgudubtay baa la yiri madax banaanida dalka Syria kana dhigtay wax kasta oo qatar ku ah amniga iyo xasiloonida dalkaasi. bayaan laga soo saaray wasaaradda amuraha dibadda dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu adkeeyay in Imaaraadku wali ay ka go'an tahay mowqifkiisa ku aadan in si buuxda muhiimadda dhuleed ee Syria loo ilaaliyo isla markaana la joojiyo dagaalada halkaasi ka soconaya. marka aan fiiriyo maxay ka dhigan tahay weerarka Israa'iil ay ku qaaday dhulka Syria ma isbedel cusub oo gobolka bariga dhexe ku soo socda mase Israa'iil baqdin ay ka muujinaysa isballaarinta iyo awoodaysiga dawladda Syria. qabiir lagu magacaabo Dr. Ahmed Al-Sharifi oo ah aqoon-yahan iyo qabiir istiraatiiji ah ayaa ka digay in Syria ay haatan wajahayso qatar weyn isla markaana ay u socoto jihada federaalka iyo kala qaybsanaanta. waxa uu sheegay in isku dayga lagu doonayo in lagu jabiyo xuduudaha gobolka Suwayda ee koonfurta Syria uu yahay qorshe lagu doonayo in gacanta lagu dhigo juqraafi ahaan dhulkaasi. weerarada Israa'iil iyo bariga dhexe ee cusub. Dr. Al-Sharifi waxa uu sheegay in weerarada Israa'iil ay ku hayso Suuriya ay yihiin qayb ka mid ah hirgelinta dhabta ah ee waxa loogu yeero mashruuca bariga dhexe ee cusub. tusaale waxa uu soo qaatay in Israa'iil ay sheeganayso in ay difaacayso duruusta ku nool Suwayda haddana waxa uu duqeynaysaa buu yiri duqeymo xooggan ay ku haysaa dhinaca Dimashq. weerarada ka dhacay maanta ayaa noqonaya buu leeyahay tusaale. arbacadii Israa'iil waxay duqeymo xooggan ka geysatay magaalada Dimashq waxayna beegsatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga taliska guud ee ciidamada militariga iyo agagaarka qasriga madaxtooyada. waxaana sidoo kale Israa'iil ay ciidamadeedu weerareen buuraha Golan oo ay haysato iyadoo ku marmarsiinayso inay ka dhigayso aag difaac oo duruusiyiinta dalka Syria ee koonfurta ku nool lagu badbaadinayo. waxa uu sidoo kale maanta kor u kacay xiisadda ammaanka ee xadka Syria ee Israa'iil iyadoo ciidamada Israa'iiliyiintu ay sheegeen in dad Israa'iiliyiin ay u gudbeen xadka una gudbeen dhinaca Syria isla markaana ay wadaan dadaalo dib loogu celinayo halkaasi. fikirka Ben Gurion ayaa taageersan baa la yiri in qowmiyadaha yaryar ee Syria garab